والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحوين كحيانك جبريل سوماليلاند مدن محمد علي عبدي gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cali xaamud jibriil wasiirka maanta martida loo yahay wasiirka tabarta wasiir axmed raage wasiirka amniga cabdallah wasiirka beeraha aadageedi la taliyaha madaxweynaha mudanta kale ee fadhida meesha ee maareeyaal iyo gudoomiyaal jaamacadeed iyo xildhibaano iyo ganacsato intaba leh mudan iyo marwaba dhalinyarada iyo qaasha iyo odayaasha waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka xiga aniga farxad dheeraad ay tahay maanta inaan mar kale soo joogsano barnaamij horumarineed oo laga qabanayo gobolka gaar ahaan degmada Boorama. xukuumaddan oo haldhigeedu ahaa waa wadajir iyo waxqabad intii ay joogtay waxyaabo muuqda oo la taaban karo ayaa la gaadhay. tanina mid bay ka tahay laba arrimood ma meesha yaallo kolba waa ka beyle soo sharxay darkiisa sidaan wax u qabsano oo caalamku wax inoo taraya wixii la inoo keenay haddaan isticmaali garan weyno wax dambeeyna ma soo gaadhayaan. gobolkan anigu aan mas-uulka maanta ka noqday qabyo badan baa taalla wax badan oo in wax laga qabto oo ku xidhan mashaariicda yaalla ee la dhaqaajin waayey ayay ku jiraan. la taliya waan u diyaar garownay waana diyaarsanay inaynu soo jiido mashaariicda oo ay soo dhaafaan xafiisyo yar oo qura inay ahaadaan ay noqdaan sidii loogu talagalay wax qabtaan ila dal riixdana waan rajeynaa haddii alla yidhaa idinka iyo wasaaradda iyo intii ay khusiisaba gaar ahaan wasaaradda biyaha beeraha iyo tamarta ha u badatee taasi waa ta kale dee xukuumadda iyo ganacsatadu dalka Somaliland way kala hormareen waxaa naga xukuumadaha ka horweynaaday ganacsatada marka xaggii regulatory systemku waxaad moodaa inuu diyaarad daba socdo imika ganacsatada ka horeeyaan. dalkani wuxuu ka yimid qaran dubay oo korontaduna dawladdu lahayd oo bilaash ahayd biyuhuna bilaash ahaayeen waxbarashadii aan soo baranay iskuul hoose ilaa jaamacad ay bilaash ahayd. marka xukuumadda maanta jirta runtii waxay la dareen noqotay shacabka waana xukuumadda gaadhay in markii ugu horreysay ay wax ka qabato in leydhkii iyo biyihiiba la taabto. maanta 10 milyan oo la gelinayo korontada Boorama lacag yar maaha waa lacag badan tu kaloo badanna waa la gelin doonaa. macnaheedu ma aha in la naaxiyo oo weyn sabab ku shubay noqoto waxa la idinka rabaa ganacsato wax kaloo ka ganacsataanba waxa nolosha khuseynaya ee ah biyaha iyo korontada ugu horeyn horta inaad noqotaan inaydan ka raadin macaash badan laakiin inay si u socon lahaayeen ku dadaashaan ay isku wadi lahayn laakiin aad barwalba ku dadaashaan inaydan macaash badan ka raadin taas waa naga dadaaran kulleybana waa mas'uuliyad dawladdu leedahay ogaadana in lagu xisaabtamayo hanti kasta oo la gelinayo leydhka iyo biyuhu inay yihiin wax dawladda u xisaabsan oo xisaabiyaha guud qalinka daba qaadan doono oo mar walba qiimaha lagu sargoyn doono haddii la yidhaahdo. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda iyo wasiirka dhaqaajinta ay dhaqaajiyeen mashruucan. aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda korontada midowga ay sameeyeen iyo isagooda ilaahay idinkiina inay wax tarto oo qiimahaas iyaguna ay sidooda u raacaan baan rajeynayaa. waxaan anagu gobol ahaan diyaarunahay wax kasta oo horumarina oo mashruucan laga qabanayo tasiilaad wixii xukuumadda ku xidhan inaan anaguna u diyaargarowno inaan idla qabanno. amniga oo lagu yar celceliyey Somaliland amnigeedu Boorama ka bilaabay. amniga Boorama iyo awdalna maaha maanta mid gudaha awdalka yimid waa mid banaankeena yimid oo laynoo hayo taana horta dadku inay fahmaan baa wanaagsan. Boorama amnigeedu mar walba gacanta ku jira laakiin xaaladaha inoo soo kordhay oo ictiraafku ka yahay oo culaysii lagu kordhiyey iyo dawlado kale oo aan qarsanaynin cadaawadda Somaliland laakiin u arkay inay dhibaatada ka soo bilaabaan galbeedka ayaa keenay oo xaaladaha nagu dashay. maantana wasiirka amniga iyo tiim uu hogaaminayo 4 bilood baan wareegaynay gobolka meeshii ugu fiicneed baan maraynaa safarkooda ku-xigeenkuna wuxuu ahaa go-aanka dambaysa. maantana waxaan idinku sheegaynaa sidii uu madaxweynuhu ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenku in maanta soonihii jabaaduhu joogi jireen ee laysku horfadhiyey uu yahay dhul qoriga ka madax bannaan oo firi ah oo ay booliskii iyo ciidamaduba soo wareegayaan oo dadku ay si caadi u socdaan. ilaahay baana mahadda iskale nabadana alla inoo adkeeyo waa mahadsantihiin.